كان taaganahay waa bartamaha suuqa magaalada Hargeysa saaka arooryadii hore markay saacadu ahayd 6 iyo barkii subaxnimo waxa gabi ahaanba hakad galay gawaarida magaalada Hargeysa taasoo ay sabab u ahayd ceeriyaan aad u tiro badan oo ay ku soo tooseen dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa waxaana ceeriyaantaasi ay sababtay inay keento shil baabuur ay isku dhacaan gawaaridu iyagoo is arki waayay ciidanka nabadgelyada wadooyinka oo xilligaasi isagu heegan u ahaa shaqada ayaa waxay kala hagayeen gawaaridaasi oo xilligaasi is arki waayay isla markaana adeegsanayay leerka habeenkii lagu soo haddaba goobjooge ka mid ah dadkii goobjooga u ahaa halkii uu ka dhacay shilkaasi ay isku galeen labada gaari ee loo kala yaqaano baska iyo waliba gaariga nooca raaxada ee loo yaqaano wantanka shilkaasi oo sababtay dhadada oo xilligaasi labadaasi gaari ay is arki waayeen ayaa waxa uu xasan iga warramayaa shilkaasi oo isagu ka ahaa goobjoog sida uu dhacay waxaan joognaa iskuiska xiraawr bartanka iskuiska xiraawr saaka baari 6 subaxdii waxa isku galay laba gaari wantan iyo gaari bas oo wada aragtiin gaariyaashaasi wax kale uma sababin waxa ugu sababtay cimilada dhadada wada aragtiin la gaariyaas ma arkin leedna mu shaqeyneen iftiinna mu shaqeyneen marka sababta ugu weyn sababta waxaan oran karaa waa dadkii aan isarkin iyo dhadadii oo farabadatay intaas ma ku sababin kara sababta marka saaka dadku isma arkin gawaadiduna hakad bay gaariyaashuna wallahi aad bay hakad u galeen dadkuna isma arkin sidoo kale wada aragtay waxaan ku dhigay imkii taagantay waa 7 iyo ay bar ku dhudhuday marka 6 wada aragtay habeenna ma ahayn maalinna ma ahayn marka sababta ugu weyn taas aan oran karaa tani waxay noqonaysaa isla markaana jawigani uu noqonayaa mid ay si baxayso qabowga iyo dhaxantii aadka u tirada badnaa Cabdirashiid Cabdi Wahaab Xuseen Universal TV Hargeysa